kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhagaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli doontaan qodobadana waxaa kamid ah khilaaf cusub oo ka soo cusboonaaday gaalkacyo kadib xilka qaadis uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Turkigana waxa uu sheegay in cashar ay u dhigi doonaan General Xaftarka dalka Liibiya dawladda Suudaanna waxa ay ka hadashay afgambigii fashilmay ee shalay dalkaasi ka dhacay BBC-da oo baaritaan ku sameysay muslimiin la dhibaateeyay iyo waliba xog aan idinka baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana daawadayaal dhagaystayaal u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in khilaaf horle uu ka soo cusboonaaday gaalkacyo kadib markii shalay madaxweynaha Galmudug uu xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiinta degmadaasi duqa magaalada gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay isaga oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Xirsi ayaa carraba ku dhuftay in xilligan madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uusan xilka qaadis iyo waliba magacaabistoona sameyn karin sidaas daraadeedna wali uu yahay duqa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu xilka sii hayn doono ilaa madaxweyne cusub loo dooran doono hoggaanka dawlad goboleedka Galmudug duqa magaalada gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb wuxuuna qayb ka yahay ololaha doorashada Galmudug ee ka socda magaaladaasi xaaladda guud ee Galmudug oo wali isjijiid uu ka jiro ayaan la ogeyn sida xal looga gaari karo khilaafka wali ka taagan dhismaha maamulkaasi oo la doonayo inuu noqdo mid loo dhan yahay haatan daawadayaal dhagaystayaal u diyaar garooba qodobada caalamka madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay inay cashir u dhigi doonaan generaalka rabsholaha ah ee Liibiya Khalifa Xaftar haddii ciidamadiisa ay sii wadaan in ay weeraraan dawladda caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Liibiya ee Tripoli hadallada Erdogan ayaa yimid talaadadii kadib markii Turkiga iyo Ruushka ay ku guuldareysteen in ay General Khalifa Xaftar ay ka dhaadhiciyaan in uu saxiixo heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjari lahaa dagaalka socda 9 bil ee uu ku doonayo in uu ku qabsado caasimadda Liibiya ra'iisul wasaaraha Liibiya Fayez al-Sarraj oo ciidamadiisa ay ku adkaatay in ay hakiyaan weerarada ciidamada Xaftar ayaa heshiis ka saxiixay kadib wada hadallada oo socday 8 saac sida uu isniintii sheegay wasiirka arrimaha dibadda Russia Sergey Lavrov madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Xaftar uu cararay haddii weerarada Xaftar ee ka dhanka shacabka iyo dawladda sharciga ee Liibiya ay sii socdaan kama joogsan doono in aan barno cashirka uu u qalmo ayuu yiri Erdogan oo khudbad u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka ee xisbigiisa AKP waa waajibkeena in aan badbaadino walaalaheena Liibiya ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sidoo kale shalay sheegay in go'aanka uu General Khalifa Xaftar ee ah inuusan heshiis xabad joojin ah la gelin dawladda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay uu muujinayo cidda dagaalka doonaysa iyo tan nabadda rabta ee dalkaasi baarlamaanka dalka Turkiga ayaa horaantii bishan ansixiyay in dawladda ay ciidamo geysay Liibiya si ay uga caawiso dawladda dalkaasi in ay iska caabiso weerarada General Xaftar dawladda Suudaan ayaa sheegtay in ay dib u furtay hawada dalkaasi iyo garoonka diyaaradaha ee Khartoum kadib shaqaaqadii shalay caasimadda dalkaasi ku dhaxmartay ciidanka dawladda iyo waliba askar daacad u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray madaxa golaha dawladda Suudaan General Abdulfatah al-Burhani ayaa waxa uu sheegay in 2 askari la dilay xilli ciidanka dawladda ay isku dayeen in ay xaaladda gacanta dawladda ku soo celiyaan generaalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin afgambi aan sharci ahayn ciidanka militariga ee Suudaan ayaa sheegay inay la wareegeen xarunta Sidoonka ee dalkaasi halkaasi oo ay gadood ka sameeyeen ciidamo mar daacad u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray ee Umar Hassan al-Bashir qarax iyo dhawaq rasaasta ayaa shalay laga maqlay caasimadda Khartoum waxaana hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaalada la soo dhoobay taangiye iyo waliba baabuurta gaashaaman taasi oo xiisad iyo walaac amni ku abuurtay dadka reer Suudaan wararku waxa ay sheegayaan in hadda la kala diray sirdoonka Suudaan waxaana ciidamada gadooday markii dambe la sheegay in ay tageen xaafadda Kafuri ee bariga Khartoum kadib markii lagu heshiiyay in ay isdhiibaan gadoodka ciidamada waxa kale oo ay keentay in la xiro garoonka diyaaradaha ee caasimadda Suudaan waxaana dawladda ay ku tilmaantay gadood ka dhashay ciidamo aan mushaar la siinin
waxaase jira walaac la qabo oo ah in ay isku dayayeen in ay minjaxaabiyaan heshiiska siyaasadeed ee Suudaan. Generaal Maxamed Xamdan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan golaha talada Suudaan haya ayaa madaxii hore ee sirdoonka Saalax Goosh ku eedeeyay in uu ka dambeeyay qalalaasihii ka dhacay wadankaasi. inkastoo falkii ka dhacay Khartoum aanu ku tilmaamin afgembi, haddana wuxuu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin arrimo noocaasi ah. ciidamo ka tirsan sirdoonka Suudaan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya askari xabad ku horridaya. wakaalada wararka ee Reuters ayaa ku soo warantay in ciidamo gadoosan ay isku gadaameen dhismo u dhow garoonka diyaaradaha. sidoo kale wakaalada wararka ee AFP ayaa waxa ay sheegtay in 5 qof ay ku dhaawacmeen qalalaasihii shalay ka dhacay Khartoum. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidanka dawladda ay la wareegeen dhammaan dhismayaashii ay markii hore isku gadaameen ciidankii ka tirsanaa sirdoonka ee gadooday. kooxda ugu weyn kooxihii dibadbaxyada ka dhigay dalka Suudaan ayaa ku baaqay in la joojiyo howlgallada argagaxa ku beeray shacabka Suudaan. ugu yaraan 170 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dalka Suudaan xilliyadii ay socdeen dibadbaxyada, waxaana kala cayrinta dadkii dibadbaxyada dhigayay qayb weyn ka qaatay sirdoonka Suudaan ee haatan gadood ka sameeyay. tan iyo sanadkii 2017 kumanaan muslimiin ayaa lagu xiray dalka Shiinaha, kuwaasi oo dawladda dalkaasi ay sheegtay in ay ku xaraysay xeryo wax lagu barto. qaar ka mid ah dadkaasi oo dib ugu laabtay dalka Kazakhstan ayaa BBC-da u sheegay in bilihii ay xirnaayeen la jir dilay, la garaacay, sidoo kalena lagu duray irbado aan garanayn waxa ay yihiin. dadka muslimiinta ee loo yaqaan Kazakhs iyo waliba Uguris iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ayaa qarniyo si xor ah ugu noolaa xadka dalalka Shiinaha iyo Kazakhstan. hase yeeshee tashkiilinta iyo dhibaataynta xukuumadda Beijing ay ku hayso dadka muslimiinta ayaa sidoo kale u gudubtay dalalka dariska ah, waxaana haatan lagu eedeeyay in shacabka dalka ay dariska yihiin ee Kazakhstan ay gaartay dhibaatadaasi. dawladda Shiinaha ayaa xeryo ku yaala Xinjiang ku haysa malaayiin muslimiin ah oo ay ka mid yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uguris iyo waliba muslimiinta kale ee Kazakhstan. waxaana BBC-da ay ogaatay in dadkaasi ay ku jiraan xeryo ku yaala galbeedka dalka Shiinaha. dawladda Shiinaha ayaa mar walba ku andacoota in xeryahaasi ay yihiin kuwa dadka wax lagu baro, dadka yimaadana ay iskood u yimaadaan. hase yeeshee dadkii halkaasi ka soo baxay ayaa sheegay in xaaladda sidaasi ay ka duwan tahay. dad badan oo ka soo baxay xeryahaasi oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in marka la dejiyay xeryahaasi qofka laga qaado wax walba oo uu wato, kadibna la geliyo xabsi dhulka hoostiisa ah, halkaasina ay muddo ku jiraan. qaar kale ayaa sheegay in markii xabsiga ay ka soo baxeen ay dawladda Shiinaha ku shaqaysatay, kadibna aan wax mushaaraha la siinin. dadka muslimiinta ee xeryahaasi la geeyay ayaa sheegaya in la isku dayay, balse qaar badan oo ka mid ah waxa ay sheegeen in wali ay ku dhagan yihiin diinta Islaamka iyo dhaqankii ay haysteen. dawladda Shiinaha ayaa mamnuucis garka iyo xijaabka hore ugu soo rogtay gobolka ku yaala galbeedka fog ee Xinjiang, wax lagu tilmaamay ololo lagula dagaalamayo muslimiinta xag jirka ah. tallaabooyinkan waxaa ku jira in la mamnuuco in raggu uu yeesho gar aan caadi ahayn, xijaabka oo lagu xirto goobaha dadweynaha iyo waliba in la diido daawashada TV-ga. Xinjiang ayaa ah meel ay ku badan yihiin dadka Uguris oo ah dad muslimiin ah oo sheega in la faquuqo. qodobka ugu dambeeya warkana daawadayaal, waxaan idinku soo gudbinaynaa xogta ku saabsan baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita. bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka ee IATA ayaa qiimeyn ku samaysay baasaboorada caalamka kuwooda ugu tayada wanaagsan ee la qadariyo. dadka watana ay si sahal ah ugu safri karaan iyo waliba kuwa ugu liita ee ay adag tahay in dadka sita ay si fudud ku tagaan dalal badan oo caalamka ah. baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu tayada wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud ugu safri karaan daafaha caalamka. dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalku gal la'aan ku tagi kara 191 dal oo caalamka ah, waxaana ay dalku galkaasi ka heli karaan meesha ugu horeysa ee ay ka galaan dalalkaasi. waxaa muuqata in qiimeynta la sameeyay ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda Aasiya, waxaana kaalinta labaad galay dalka Singapore. dadka haysta baasaboorka dalkaasi waxay fiisa la'aan tagi karaan in ka badan 190 dal oo caalamka ah,
halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay wadamadaasi ay 189 dal ku tagi karaan si sahal ah iyadoona dalku galka laga siinayo halka ugu horeysa ee ay ka galaan wadamadaasi. dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalimaha ugu horeeya kuna badan kaalinta tobnaad waxaana kaalinta afraad ku jira dalalka Finland iyo Spain halka dalalka Luxembourg iyo Denmark ay soo galeen kaalinta shanaad. Faransiiskana wuxuu ku jira kaalinta lixaad. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalimihii hore ee ay ku jireen. dalka Ingiriiska ayaa hoos u dhaca ku yimid lagu tilmaamay jahwareerka ka dhashay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waxaana Ingiriiska hadda uu ku jira kaalinta 8aad. Britain ayaa 5 sano ee la soo dhaafay ku jirtay kaalimaha ugu horeeya sida lagu qoray Henley Passport Index. dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiimeeyay wadan guul badan ka gaaray sare u qaadida tayada baasaboorkooda maadaama dalkaasi dad badan oo caalamka ay dalxiis u tagaan. baasaboorka dalka Imaaraadka Carabta ayaa 10 sano ee la soo dhaafay wuxuu ku jiray kaalinta 47 balse hadda waxaa lagu qiimeeyay kaalinta 18aad waxaana dadka haysta baasaboorka dalkaasi ay dalku gal la'aan tagi karaan 171 wadan oo caalamka ah. baasaboorada sanadkan 2020 ugu wanaagsan caalamka waxa ay kala yihiin Japan oo lagu tagi karo 191 dal, Singapore oo lagu tagi karo 190 dal, Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo lagu tagi karo 189 dal. Talyaaniga iyo Finland ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 188 dal. Spain, Luxembourg iyo Denmark ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 187 dal. Sweden iyo Faransiiska ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 186 dal. Switzerland, Portugiiska, Netherlands, Ireland iyo Austria ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 185 dal. Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Greega iyo Belgiumka ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 184 dal. New Zealand, Malta, Jamhuuriyadda Czech, Canada iyo Australia ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 183 dal. Slovakia, Lithuania iyo waliba Hungary ayaa baasaboorada waxa lagu tagi karaa 181 dal. baasaboorada ugu liita caalamka sanadkan 2020 waxa ay kala yihiin dalal dhowr ah oo caalamka ayaa baasaboorada dalku gal la'aan lagu tagi karaa wax ka yar 40 dal waxayna ku jiraan lambarada ugu hooseeya. Kuuriyada Waqooyi iyo Suudaan baasaboorada waxa lagu tagi karaa 39 dal. Nepal iyo Falastiin waxa lagu tagi karaa baasaboorada 38 dal. Liibiya 37 dal ayaa lagu tagi karaa baasaboorkeeda. Yemen baasaboorkeeda waxa lagu tagi karaa 33 dal. Soomaaliya iyo Pakistan labadooda waa isku mid oo baasaboorada waxa lagu tagi karaa 32 dal. Suuriya 39 dal ayaa lagu tagi karaa baasaboorkeeda halka Ciraaqna baasaboorkeeda lagu tagi karo 28 dal. Afghanistan ayaa kaalinta ugu hooseysa ku jirta oo baasaboorka dalkaasi waxa lagu tagi karaa oo kaliya 26 dal. daawadayaal dhageystayaal intaasi waxaa nooga dhan wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee dhulka Soomaalida iyo caalamkaba aan idin ka soo ururinay.